Assalaamu calaykum kusoo dhawaada YouTube-ka Maareeye Channel. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa filim ka hadlaya qiso dhab ah. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa Kalera oo ku dhex ooynaysa kaymaha dhexdooda, waxayna raadinaysaa gabadheeda Sarah. Maalmo ka hor Kalera iyo gabadheeda Sarah waxay hagaajinayeen guriga maadaama ay u soo guureen magaalo cusub. Iyagoo gaari ku kaxaysanaya magaalada cusub, waxay imanayaan iskuulka. Sarah waxay hooyadeeda weydiinaysaa halka ay ka shaqayn doonto, halka Kalera ay u sheegayso inay tahay maamul ku xigeen. Waxayna u sheegaysaa in shaqadeeda uu bilaabanayo 2 saac subaxnimo uuna u soo dhamaanayo 9 saac galabnimo. Sarah waxay iskuulka galaysaa iyagoo ay soo eegayaan koox gabdho ah. Maamulihii weynaa waxa uu soo dhaweynayaa Kalera, waxa uu soo yarabarayaa shaqada, waxa uuna tusayaa miiskeeda xafiiska. Galaaska kadib Sarah waxay fiirinaysaa koobabkii ay ku soo guuleysteen ardayda iskuulka dhigata, waxaana u imanaysa kooxdii ardayda ahaa ee ku soo guuleysatay kubadda kolayga. In yar ayay la hadlayaan wayna ka tagayaan. Intaa kadib iyada waxay soo galaysaa qolkii lagu ciyaarayay kubadda kolayga. Iyada kaligeeda ayaana ciyaaraysa kubadda kolayga. Iyadoo ciyaaraysa kubadda kolayga, xirfadda ay u leedahay kubadda kolayga waxa arkaysa macalimada lagu magacaabo coach. Sarah iyo hooyadeeda Kalera waxay aadayaan baqaarka cuntada lagu iibiyo. Macalimadii coach waxay imanaysaa halka, waxay u sheegaysaa in gabadheeda Sarah ay ku fiican tahay ciyaaridda kubadda kolayga, waxayna ka dalbanaysaa inay ku soo biirto kooxda ardayda ay tababarto. Kalera waa ay ku farxaysaa maadaama ay soo degtay magaalo cusub. Coach waxay uga waramaysaa kooxdeeda sida ay u wanaagsan yihiin, waxayna u ballan qaadaysaa in gabadheeda Sarah ay siin doonto minxo waxbarasho oo bilaash ah. Waxayna sidoo kale macalimadii coach ku oranaysaa gabadheeda ayaa ah hogaamiyada kooxda. Intaa kadib waxay Sarah u soo bandhigaysaa in maalinta xigta ay imaado tababarka iskuulka. Habeenkii iyagoo labadooda wada daawanaya TV-ga, Kalera waxay gabadheeda u sheegaysaa in coach ay ka dalbatay in berito ay aado tababarka iskuulka. Sarah waxay ku oranaysaa waxaan haystaa koox aad u wanaagsan. Kalera waxay gabadheeda ku qancinaysaa inay leedahay talent aad u wanaagsan, waxayna ku oranaysaa waxaad samaysan kartaa saaxiibo cusub. Maalinta xigta Sarah waxay ka reynaysaa qof waliba, waxayna dhalinaysaa dhowr gool. Coach hooyadeeda Ruth waa ay ka xumaanaysaa. Intaa kadib coach waxay ku dhufanaysaa afka, dhulka ay ku dhacaysaa waxaana ka imanaya dhiig, halka Kalera ay ka daawanayso albaabka dibadda. Ruth waxay iska indhatiraysaa dhacdadii waxayna sii wadanaysaa gameka. Markii dambe coach waxay soo qabanaysaa gacanta. Kooxdii waxay isku raacayaan xirfadeeda, waxayna ku soo dhaweynayaan inay ka mid noqoto kooxda. Coach waxay Sarah habeenka ku casuumaysaa inay isku raacaan goobo kale, iyadana waa ay ka ogolaanaysaa. Sarah waxay la hadlaysaa hooyadeeda, iyada waxay hooyadeeda u sheegaysaa in guriga ay u soo laaban doonto 11 habeenimo ka hor. Kadib coach ayaa ku oranaysa soo soco. Sarahna waxay raacaysaa iyaga. Habeenka waqti dambe Kalera waxay gabadheeda wacaysaa marar badan, waxay u diraysaa fariimo codad ah, waa ay ku daalaysaa, waxay u diraysaa fariimo qoraal wayna iska seexanaysaa. Maalinta xigta Kalera waa ay soo kacaysaa, waxayna arkaysaa gabadheeda Sarah oo aan weli guriga imaan. Iyada sida ugu dhaqsiyaha badan waxay u soo degdegaysaa iskuulka, waxayna Sarah ka raadinaysaa fasalkeeda, balse kursigeeda qofna ma fadhiso. Waxa ay kooxdii ardayda ahayd weydiinaysaa Sarah. Coach ayaa u sheegaysa inay ka soo tagtay xalay, waxayna ku oranaysaa ma aqaan waqtiga ay ahayd. Intaa kadib iyaga waxay u baxayaan tababarkooda. Kalera aad ay u walwalaysaa, waxayna wacaysaa Sarah saaxiibadeedii hore. Intaa kadib gabar wadada maraysa ay u malaynaysaa gabadheeda Sarah. Intaa kadib waxay u baxaysaa saldhigga booliiska, waxayna xaaladaha uga waramaysaa Rick. Xafiisyahii labaad ayaa ku oranaya waxa laga yaabaa in gabadhaada xalay ay cabitaan cabtay, ayna hurdayso hadda maadaama xalay oo idil ay ku maqaneed xafladda. Kalera waa ay ka diidaysaa, waxayna ku oranaysaa gabadhayda weligeega sidan oo kale umaanan waayin. Rick ayaa ku oranaya waxa la su'aalayaa ardayda, balse xafiisyahii labaad ee sheriff ayaa diidaya maadaama uu abti u yahay mid ka mid ah ardayda. Kalera waxay ka dalbanaysaa in la xukumo iyaga, sheriffna waa uu ku raacaya. Isaga waxa uu wareysanayaa kooxdii ardayda ahayd, halka Kalera ay daawanayso muuqaalkooda. Iyaga hal ayaa loo su'aalayaa, waxaana la weydiinayaa waxyaabo ku saabsan xafladii ay timid Sarah. Iyaguna waxay oranayaan Sarah waxay cabtay dhalo qamri ah, waxay kaloo ku oranayaan waxay ku cabaysay meel sagxad ah oo laga soo dhacayo. Iyaga waxay ku oranayaan Sarah waxay inoo sheegtay in aad ay u nacab tahay magaaladan cusub oo ay timid. Waxay kaloo ku oranayaan waxay aad ugu sarqaantay dhalada qamriga ah. Markii coach ay sheegtay waxyaabo qalad ah oo aynaan sheegin ardayda kale, coach waxay u malaynaysaa in Kalera ay aaday gurigeeda. Dhammaantoodii waxay sheegayaan in Sarah ay soo baxday 5 saac oo rubi dhiman, halka Kalera ay daawanayso muuqaaladooda wareysiga. Kalera waxay u tagaysaa sheriff, waxayna u sheegaysaa in ay qaldeen goobta ay joogeen. Coach aabaheeda ayaa xanaaqaya maadaama iyada la eedeynayo. Ruud ayaa canaananaysa wayna istaajinaysaa isaga, waxayna u sheegaysaa in Kalera gabadheeda ay fiican tahay, ayna heli doonaan goor dhow. Kalera isla markii ay guriga timid, iyada waxaa soo wacaya koox qarsoon. Markii ay taleefanka ka qabatana lama hadlayaan
sameynayaan iyada. Subaxdii xigtay Kalera waxay Rick ku balamisay maqaaxida kofeega. Isaga waxa uu sheegayaa in dad badan ay ka xumaadeen arrinkan sababtoo ah dadka degan magaalada waa ay ka taxadaraan kooxdooda. Kalera waxay u sheegaysaa in gabdhuhu ay wax qarinayaan, waxayna isaga u sheegaysaa in gabdhaha ay ku dhaheen ma xasuusano waqtigii ay soo baxday Sarah. Kadib markii ay weydiisay iyada, kadib Rick waxa uu tusayaa muuqaal Sarah ay ku xadayso dhalo qamri ah, waxayna ka soo xadaysaa baqaarka, balse Kalera waxay ku oranaysaa ma arkayo wajigeeda, waxayna u sheegaysaa in gabadheeda aysan cabaynin wax qamri ah. Kalera waxay warqado ku faafinaysaa magaalada, waxaana waraaqaha ku qoran in ay weysan tahay gabadheeda. Habeenkii markii ay gurigeeda timaado waxay arkaysaa albaabkeeda oo qoraal ku qoran. Subaxda xigta Rick ayaa albaabka u soo gargaraacaya, waxay aadayaan kaymaha, waxayna helayaan Sarah kabaheeda, waxay ka hadlayaan warbaahinta, waxayna sameynayaan baaritaan lagu baarayo meydka gabadha. Iyaga waxa ay ka dhex raadinayaan kaymaha dhexdooda. Ruud waxa ay Kalera u sheegaysaa haddii Sarah aysan ka dhex helin kaymaha dhexdooda, waxaa jirta fursad kale, welina waa ay nooshahay iyada. Intii uu baaritaanka sii socdo, Ruud waxa ay la hadlaysaa gabadheeda Coach, waxayna u sheegaysaa inay is adkayso. Kadib Coach waxay helaysaa Sarah taleefankeeda. Ruud waxa ay gabadheeda Coach u sheegaysaa in halka ay ku sugto, waxay raacaysaa raadadkii Sarah waxayna arkaysaa teendho halka ku dhisan. Iyada waxay arkaysaa Sarah oo gudaha ku jirta. Dhulka ayay jiiftaa waxaana madaxeeda ku yaala dhaawacyo. Iyada waa ay soo toosaysaa waxayna caawimaad ka dalbanaysaa Ruud. Waxay u sheegaysaa inay buurta ka soo dhacday oo ay lugta ka dhaawacantay. Ruud waxay u sheegaysaa inay isdejiso. Waxay ku oranaysaa aniga ayaa ku caawinaya, wayna ka tagaysaa. Iyadoo soo eegi rabta Coach waxay arkaysaa Coach oo taagan teendhada horteeda. Iyaga waxa ay maqlayaan Sarah oo hinteeda. Ruud waxa ay ku xiraysaa albaabka halka Sarah ay ka baryayso in ay badbaadiso. Coachna indhaha ayay ka daawanaysaa waxa dhacaya. Ruud waxa ay gabadheeda Coach kula doodaysaa in Sarah ay dhimatay, halka Coach ay doonayso inay caawiso Sarah. Ruud waxay u sheegaysaa gabadheeda inaysan qofna wicin. Waxay ku oranaysaa xabsi ayaad gelaysaa haddii Sarah ay soo baxdo, noloshaadana halka ayuu ku burburi doonaa. Sarah gudaha ayay ka dhagaysanaysaa dhammaan waxyaabaha ay ku hadlayaan. Iyada waxay gabadheeda Coach u sheegaysaa in mar hore ay been u sheegtay booliiska, waxayna ku oranaysaa haddii aan hadda sheegno dhammaan kooxdii ardayda ahayd waxaa burburaya noloshooda. Halka ayay ka tagayaan. Ruud waxa ay qaadaysaa taleefankii Sarah wayna baxayaan. Baaritaankii waa uu fashilmay. Kalerana aad ay u walwalaysaa. Habeenkii waqti dambe Ruud iyo Coach waxay aadayaan webiga, waxay taleefankii Sarah ku xirayaan doonta, waxayna raacinayaan webiga si aan loo fahmin. Subaxda xigta Rick ayaa soo jeedinaya in baaritaanka weli uu wax ka dhiman yahay, wuxuuna ku oranayaa wax ayaa yara qaldan. Ruud ayaa u soo jeedinaysa in baaritaan ay ku sameeyaan webiga, waxayna ku oranaysaa waxaa laga yaabaa in halka aad ka heshaan. Iyaga waxa ay soo aadayaan webigii, waxay doonta ka dhex helayaan Sarah taleefankeeda, waxaana halka gelisay Ruud. Rick waxa uu ku oranayaa waxaa laga yaabaa inay dhimatay Sarah. Kalera waxay ku qaylinaysaa magaceeda waxayna ku dhex soconaysaa kaymaha dhexdooda. Dhulka ayay fariisanaysaa iyadoo niyad jabsan. Rick waxa uu soo kaxaynayaa gurigeeda. Subaxda xigta iyadoo jikada ku dhex ooynaysa, qof ayaa soo garaacaya gambaleelka albaabka. Sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u soo degdegaysaa iyadoo u malaynaysa Sarah, balse waxay arkaysaa warqad duug ah oo la soo dhigay albaabkeeda hortiisa. Warqada waxaa ku qoran qodob ka hadlaya gabar ka tirsan iskuulka kooxda kubadda koleyga oo ismiidaamisay. Kalera waxay aadaysaa Ruud, waxayna u geynaysaa warqadii maadaama iskuulkeeda uu ka dhacay falka. Kalera waxay ku oranaysaa macquul ma ahan in gabadheeda Sarah ay isku disho isla sidan. Ruud iyadoo nafsadeeda difaacaysa waxay oranaysaa dhacdadani waxay dhacday dhowr sano ka hor. Iyada waxa ay ku oranaysaa waxaan gabdhaha u tababaraa si isku mid ah. Ruud waxay sheegaysaa in Sarah ay gacanteeda isku dishay. Kalera waxay aadaysaa miiskeeda, waxayna Google-ka ka baaraysaa macluumaad ku saabsan gabadha ismiidaamisay. Kadib waxaa imanaya arday dhigtay iskuulka iyo aabihiisa. Aabihii waxa uu Carol ku oranayaa ii sheeg wixii aad doonto aniga ayaa ku sameynaya. Kalera waa ay ka caroonaysaa hadalka, way soo kacaysaa wayna ku qaylinaysaa. Waxay ku oranaysaa anigu ma doonayo in aad wax ii qabato. Waxay kaloo ku oranaysaa Sarah weli ma aysan dhiman ee waa ay nooshahay. Dhanka kale teendhada dhexdiisa, Sarah waxay arkaysaa laba askari oo halka jooga. Iyada waxay isku dayaysaa in caawimaad ay ka dalbato, balse iyada waa ay daciiftay, iyaguna waa ay iska baxayaan. Maalinta xigta Carol waxay arkaysaa video ku saabsan gabadheeda. Waxa Sarah silcinaya gabdhaha ay isku galaaska yihiin. Kalera waxay videoga ku dhex arkaysaa in Coach ay duuwayso dhammaan dhacdada. Iyada sida ugu dhaqsiyaha badan waxay u soo degdegaysaa guriga Coach. Markii ay albaabka ka furto waxay weydiinaysaa wixii ay ku sameeyeen Sarah. Coach waa ay ooynaysaa waxayna u sheegaysaa in Sarah ay qamri siiyeen. Iyaga waxay dhexda xarig uga xireen Sarah, waxayna ka tuureen buurta. Kalera aad ay u niyad jabaysaa kadib markii ay maqasho hadaladani. Coachna waxay u sheegaysaa in si shil ah uu u dhacay arrinkani. Waqti xaadirka Ruud oo gaarigeeda wadata ayaa halka imanaysa, waxayna arkaysaa labadooda oo wada hadlaya. Coach waxa ay Kalera u sheegaysaa in ayada iyo hooyadeeda ay arkeen Sarah, waxayna
waxayna u sheegaysaa inay ku xiran tahay teendhada dhexdiisa. waxay kaloo ku oranaysaa hooyadayda ayaa igu tiri ma badbaadayso Sarah. Clara sida ugu dhaqsiyaha badan waa ay ka dhaqaajinaysaa halka. Ruud waxay u soo deganaysaa coach waxayna weydiinaysaa waxyaabihii ay u sheegaysay Clara. iyada waa ay ooynaysaa waxayna u sheegaysaa inay sheegtay dhammaan sirihii. Ruudna waxa ay si xanaaq leh u dharbaaxaysaa gabadheeda. waxay u sheegaysaa inay badbaadinaysay nolosheeda. coachna waxay u cararaysaa qolka. Ruud waxa ay soo qaadanaysaa bastooladeeda. sidoo kale waxay soo qaadanaysaa badiil. waqti xaadirka Clara waxay u soo degdegaysaa saldhigga booliiska. waxayna Rick tusaysaa fiidiyowgii. iyaga waxa ay maabka ka eegayaan teendhada. waxayna u soo baxayaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Ruud waxa ay soo gaaraysaa teendhadii. waxayna arkaysaa Sarah oo miir daboolan. dhanka kale Clara iyo Rick waxa ay soo raacayaan helicopter. Ruud waxa ay qabri u qodaysaa Sarah oo miir daboolan. waxayna doonaysaa inay duugto Sarah. Rick waxa uu helayaa teendhadii waxayna soo dejinayaan helicopterka. Clara waxay u soo ordaysaa teendhadii balse kuma dhex arkayso gabadheeda Sarah. iyada waxa ay raacaysaa raadka wadadii ay martay Ruub. waxayna arkaysaa Ruub oo sii qodaysa qabriga. Clara waxay ku soo ordaysaa Ruub dhulka ay ku tuuraysaa waxayna qabsanaysaa gabadheeda. Ruub waxa ay bastoolada ku aadinaysaa Sarah. waxayna Clara ku amraysaa inay ka fogaato iyada. kadib Rick ayaa bastooladiisa ku soo aadinaya Rob balse isma dhiibayso iyada. Clara waxay arkaysaa in Ruub ay ku istaagan tahay bacda. waxay la gadinaysaa bacdii ay ku istaagnayd. waxay sababaysaa in Ruub ay dhacdo. waxayna madaxa gashanaysaa dhagax halkaa yaalay. halkaa ayayna sida ugu dhaqsiyaha badan ugu dhimanaysaa. Clara waxay helicopter ku qaadaysaa gabadheeda Sarah wayna baxayaan. gabadhiina waxaa xiraya booliiska. filimkuna halkaa ayuu ku dhammaanayaa. ugu dambayn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. mahadsanid.